anigoo xildhibaanad galmudug magaceygana la yiraahdo Cali Maxamed Cusable maanta ay taariikhdu tahay 11 bishii September 2018 waxa farxad weyn ah in aan caqabad iyo culays galmudug ka qaadnay aan ku hayno muddo 3 sano iyo bar ah waxaan soo dhaweynaynaa mooshinka xildhibaanada saxiixana anaa number 1 ka ah waxaan la socdaa aniga Cali Gacal wuxuu ku yimi gudoomiyahaygi hore cod aan siiyay 3 wareeg ku yimi maantana waxaan kalsoonida wala noqday in uu waajibkii aan u igmadeen u doorteen ka sugaayay 3 sano iyo bar uu gudan waayay noqdayna caqabad galmudug horumarkeeda iyo midnimadeeda iyo wadajirkeeda ka soo horjeeda waxaan u soo jeedinayaa guddoonkeena sharafta badan ee naga qaaday mooshinka naga qabtay mahad u celinaya waxaan kale u mahad celinayaa xildhibaanada walaalahay ah oo qaaliga ah oo uu caqabad ku yahay xuquuqdeena kuma doodin waligiis isaga xaq gaar raadsan jiray waligiisna ma sheer garaysi cadaalad ah cadaalad daruu nagu waday wuxuu ku darsaday inuu dumiyo qarannimadii iyo jiritaankii galmudug sidaas darteed kalsoonidii waa kala noqonay waxaan rajaynayaa in ay kuwaana qaataan madaxda la midka ah ninkan waajibkiisa xilkiisa gudan wadada gudoomiyahaygi hore Cali Gacal Casir meeshuu marayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mudane madaxweyne ma kaafilayni kelmadda shalay aad tiri laakiin wax aadan ogeyn aan ku ogeysiinaya maanta Cali wuxuu ka tagay galmudug isku darkii labada baarlamaanada ex gobolada dhexe iyo galmudug oo la mideeyay bishii April 8deedii 2018 ka tagay Dhuusamareeb 25keedna wuxuu ku asagoon xil hayn 25kii bishii Juun wuxuu ku laabtay Cadaado uu tagay wax kasoo ku tagay iyo sababaheedii oo dhan waa la soconaa laakiin wax walba qof weyn iyo umursaba say wax ogyihiin uma sheegi mayna laakiin taariikhda is sheegaysa Cali wuxuu dhacay isaga iyo madaxweyne ku xigeenkuba 8 April uu inta ka tagay 24 cisho hadii 45 cisho haduu maqan yahayna dastuurkeena iyo xeer hoosaadkeena waxay qorayaan inuusan xil haynin sabab la'aan uu ku maqnaa nin aan xil hayn ayaad shalay waxaad ka tiri iskool bulutiya dhexdeeda furitaankii kalfadhiga afraad ee baarlamaanka federaalka gudoomiyaha galmudug oo baarlamaanka nooma aha gudoomiye hadaadan ogeyn caawa ogow Cali waa xildhibaan galmudug oo aniga ila mid ah 45 cishuna ka maqnaa shaqadiisii ilaa ay haddana uu ku maqan yahay wax uu ku maqan yahay jirta dumin qaran uu ku maqan yahay laakiin Cali iyo dadka garabka oo la socda waxaan u sheegaynaa galmudug hadda ka horna waa idin sheegay madaxweyne xaaf markii la ridaayay oo mooshinkii lacagta lagu bixiyay laga keenay galmudug ice cream iyo chocolate ma aha wayna jiraysaa waa dad adagoo birta calashaday macnaha dawladnimada iyo macaankeedana yaqaana dagaalkana yaqaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacayga waa Saciid Maxamed Xaashi xildhibaan dowlad goboleedka galmudug runtii waxaan soo dhaweynaynaa mooshinka runtii waxa horta aan ahay xildhibaanada mooshinka saxiixay oo Cali Gacal ka keenay runtii waan soo dhaweynaynaa muddo badan markii aan dul qaadanay wuxuu ahay gudoomiyaha baarlamaanka maadaama dowladda federaalkana fargelin toos ah annaga nagu haydo galmudug qaasatan annaga qaas ay noo tahay hadda xaqa u leenahay waxa xil naga saaran waa galmudug waxaan xildhibaan u nahay waa galmudug maadaama marka waxa waaye sheeg aan garanay xilka annaga naga saaran runtii aad baan u soo dhaweynaynaa insha Allah fikirkeena inaan muujino باش عالمك موجودنا دولة موجودنا إن شاء الله مركب حوايا وعن لوكال بيحضونا أذكى برنامج إن شاء الله. أنا مقعي وحال الذهب آذن علي ذهبكين وحن كم ده الدبانة ذا قل مدو وحن صور وينينا وحن نرتا كم ده دتك صحيح موشينك رديد علي جعل أدي أيام ما أنت وكل صون هاي riditaanka Cali Gacal waxa horumar ah iyo wax dan ah oo u qabtay aniga kolba baarlamaanka inta joogo runtii ma arkin intaas markaan Cali Gacal uga gudbo oo aaminsanahay maanta inuu daayo culayskiisii gobolkan waxaan rabaa inaan hal kalma iraahdo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Farmaajo oo ahaa madaxweynihii aan dooranay
aan aad iyo aad waqti badan iyo jundi badan aan gelinay waxa aad naxdin u ahaa hadalka ka soo yeeray farmaajo xalay iyo shalay ma aanan sugeyn mid aan u fadhinana ma ahayn runtii waxaan leenahay farmaajo 2 sano ku hartay laakiin galmudug waa joogaysaa waligeed mana tagayso adiga tagaya laakiin taariikhda aad ka tagayso inaad ka fiirsataa fiicneyd waxaan nasiib darro ah galmudug kuma sheegatid maanta wax aad ku sheegato oo aad u qabatay 2 sano haba yaraatee ma jirto waxa dhibaato ah adoo madaxweynaha galmudug sharaftii lagu soo dhaweeyay iyo qiimihii lagaaga aqoonsanaa waxa la wixii aad ballan qaaday iyo beentii aad sheegtay oo dhan madaxweyne aad haddana cadaysatay maanta waxa ilaahay xamdigiis ah in aanan xaakim ka dhiganayn aan ogaanay dhinaca aad naga xigto waxa farxad noo ah hadalkaagii wuxuu cadeeyay farxadna noo ah in aanan maanta madaxweynimo ku hoos tagayn xaakimna aan ka dhiganaynin waxa guul noo ah ereygaas waxaan ku sheegaynaa galmudug waa jir doonta waana jiraysaa adaa tagay 2 sano ku hartay waxaan ku tagtay taariikh xumo